khadka taleefanka waxaa ku jira wasiirka arrimaha gudaha dawladda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo aan faahfaahin ka weydiinayo qarax ismiidaamin oo ka dhacay caawa magaalada Garowe mudana wasiir ku soo dhawow Puntland Post bal sidee wax u dhaceen waa dhawahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxa wax u dhaceen waxa jiray in gudoomiyihii gobolka Nugaal iyo nin ahaan jiray taliye hore qaybta booliiska Faarax Garowe la yiraahdo oo gaari saaran in qof nafti hura ah oo nafti haliga oo isku biimeeyay qaraxna halkaas uu ka dhacay dhaawac baan ugu qaaday hadda isbitaalka ayay yaaliin gudoomiyaha iyo taliyihii iyo qof asaguna shacab oo jidka marayo asaguna ku dhaawacmay xaaladoodan hadda gacanta ayaa lagu hayaa waxaan rabnaa inaan saxno in waxa jira dad social media meelaha ku qoray in uu gudoomiyaha iyo dhintay laakiin xaaladoodu waa degan tahay gacanta ayaa lagu hayaa ilaahay idinkiisa waxaan rajeynaynaa inay caafimaad doonaan mudana wasiir qaraxa dhacay ismiidaaminta ma gaari wahaa mise qof ku ahaa sida xogta hordhaca ay sheegayso waxa weeye inuu ahaa qof nafti haliga ah oo isku qarxiyay gudoomiyaha iyo gaarigooda ayuu ku jira meesha qaraxu ka dhacay waa xagee waa barxadda Garowe marka xilliga uu dhacayna waa xilli ma wuxuu dhacay adeer caaw fiidkii qiyaasta markay ahayd hal saac iyo xoogaa markay ahayd buu dhacay qaraxu marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in gudoomiyaha iyo ragga kale oo ku dhaawacmay ilaahay caafiyo haddii ilaahayd mana insha Allah sidii awalba ka goonay dowladda Puntland waxaa la samayn doonaa baaritaan arrinta la xiriira ciddii maaragtay arrintaas dabada la gashana tilaabooyin baa laga qaadi doonaa haddii ilaahayd wasiir ma jirta ilaa iyo haatan cid loo qabtay qaraxaas adeer hawshaas waa socotaa booliiska ayaana gacanta ku haya bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay isdejiyaan arrintan cid kastoo ka feejignaanaada cid kastoo ka dambaysana haddii lahaydno baaritaan baa socda tilaabooyin ayaa la qaadi doonaa haddii lahaydno xaaladda gudoomiyaha iyo taliyihii hore iyo muwaadinka kale ku dhaawacmayna xaaladooduna hadda waa degan tahay gacanta ayaana lagu hayaa ilaahay ka baryaynaa inay caafimaadaan dadkana waxaa laga rabaa in ay wixii ay dareen ay qabaan ama xog ay hayaan ay la wadaagaan booliiska iyo hay'adaha dowladda ee amniga si markaas ay gacan uga geysato arrimaha baaritaanka la xiriira Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran